Haweenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Cabdilaahi Ibrahim Xaaji Xasan ayaa isna isdul taagay taariikhda faca weyn ee dugsiga Axmed Cali Tuure hore loo oran jiray ma ka durduro uu ku leeyahay guud ahaan qaranka iyo bahda waxbarashada. runtii ilaahay baa mahadle saaka halkan keenay haddaan in yaroo xusuus dib u noqdo anu waxaan la soo hadlay darawalka deetana wixii guri malka durduraan joognaa malka durduro joogitaankeedu macna kala gaar ah aniga shakhsiyan iyo dhadhan iyo dareen kala gaar ah ayay runtii sameynaysaa gaabiyankani hadumo oo hawshan waxaan ku soconaysa iyo waxaan ku muxuu dugsigan waxaan ku doox ku soo fiday marka laga yimaado boqcadani waa boqcad runtii xusuus gaar ah leh si walba waxay u tahay taariikh la badbaadiyo oo laga badbaadiyo dugsigan iyo eriyada dugsigaas bay inoo badbaado qaran ahaan macna weyn bay noogu fadhidaa hadii raadkani ma saxmo lamaan gaabiyanka iyo dhulka imika doox ku fidayo oo dhan meel walba xabaal wadareed ba ku jirta raad runtii u baahan inaynu xilis ka saarno oo badbaadino oo samata bixino oo meeshan dhibaato weyn ba ka dhacday markii horeba daadku baa dayna tusay meeshan mushakil jiro oo waxaan ku muxuu daadun baa soo saaray xilliga horeba markasto oo sida maamulada dugsigu sheegay daadkani waxaan ku dhinacyada dooxa maraba lafa soo baxa deetana ardayda iyagu wax iska kaashadaan inay meel shisho oo kale ku aasaan ilaahay waxaan ka baryaa dadkii horta halkan dee lagu suuqay gacanta ka xaqdinay naxariistana ka waraabiyo mar labaadna qaran ahaan badbaadinta iyo dee u soo gurmashada halkan taariikh kale iyo xusuus kale inagu leedahay waxaana runtii aad iyo aad ugu han weynahay maadaama waftu wasiirku waxaan ku hogaaminayaa goobta Mariyaaga Simi guud oo dee awoodihii fulinta ee wasaaradda waxbarashadu ay goob joog yihiin saakan markii information ku runtii soo gaadhayba markiiba way soo dhaqaajiyeen kalsoonina waxaan ku qabaa inuu qaranku halkan dee gurmadka gali doono si dawladda wax looga qaban doono raadadkan kale ee meesha ku yaalana aanu dhamaanteen dee iska kaashan doono sidii waxaan ku muxuu ahaa ay subanta bixi lahaayeen dugsigu waa dugsi qadiima oo dee taariikhi ah oo dugsiyadii dee Ingiriisku dhisay markii uu dalkeena waxaan ku dee u joogay sida marar dhaxal la sheegana dugsigan waxa macallin ka noqday macallinkii weynaa halgamaagii taariikhiga ahaa Maxamed Mooga Liibaan waa dugsi waqtiyada qaar kood ahaa dugsiyada farakuturiska ee magaalada ku yaala marka dambana waxa loogu magac daray dee ariyooyadii ugu magac weynaa ee gobolkan Maroodijeex